آمين 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 آمين. abaar ba'an ayaa ka jirta ismaamulka Mandera ayaa saameyn aad u weyn ku yeelatay bulshada ku nool tuulooyinka reer miyiga sida tuulada Garablaqa, Oola, Kilwaheri, Dandu, Qarboqolley, Finno, Aresa iyo dhammaan tuulooyinka hoos yimaada ismaamulka Mandera. Magaalada Mandera maanta waxaa laga dareemayaa weji ka duwan wejiyadii hore lagu bartay taasi oo si weyn u saameysay abaarta ka jirta tuulooyinka. Caruurtii qosolka lahayd maanta waxay ku hadlayaan oohin iyo aamusnaan taasi oo rajo beelisay farxaddii laga arki jiray xilliyada oo roobabka ka jiray deegaanada. Hooyooyinka rajada lahaa maanta waxay u seexdaan iyadoo caloosha maran oo ilmada ku qobanayso taasi oo mar walba arkaya in xoolihii ay dhaqan jireen ay hortooda ay ku baaba'ayaan. Qof walba halkaasi ku nool wuxuu maanta ku jiifaa hal rajo oo keliya taasi oo inuu arko rajadiisa in gurmad degdeg ay helaan. Xoolihii dadku ku faani jireen waxay maanta yaalliin sidii xasuus duugmaday oo kale taasi oo si rasmi u muujinaysa abaarta daran ee ka jirta deegaanada. Ceelashii nolosha ahaana maanta waxay u taagan yihiin sidii astaanta musiibada oo laga dareemayo qiiq oo keliya. bal maskaxdaada ka eeg ama ka fikir ilmo 3 sano jir ah oo sariir seexday isagoona maalintii oo dhan biyo cabin ama cunno u helin. Hooyo aan awoodin caruurteeda u hesho biyo iyo cunno ay arkayso in xoolihiina agteeda ay ku baaba'ayaan. waa yeelo fadhiya iyagoo sugaya gargaar degdeg ah taasi oo aysan awoodin in guryahooda ay ka soo baxaan. tani maaha sheeko fog, waa sheekada maanta ay ka siiman tahay dhammaan tuulooyinka iyo ismaamulka Mandera abaartu saameysay. dhammaan tuulooyinka iyo ismaamulka Mandera iyo meel walbo waxay maanta wadaagaan dhaxalka murugada abaarta halka ceelashii biigelinta ay qalaleen taasi oo keentay in xoolihii lagu iibiyo qiimo jaban si ay u badbaadiyaan noloshooda iyo madda qoysaskooda. qiimaha biyaha ayaa kor u kacay taasi oo markii hore ay ku iibsan jireen 5,000 oo shilinka dalka booyadii halka imika ay marayso 50,000 oo shilinka dalka taasi oo ka dhigtay inay awoodi waayaan. waxaa dhammaan dowladda loogu baaqay ismaamulka Mandera iyo dhammaan ganacsatada hay'adaha samafalka inay gargaar degdeg ah gaarsiiyaan dhammaan tuulooyinka ay saameysay abaarta si loo badbaadiyo caruurta, waayeelada iyo hooyooyinka. waxaan sidoo kale kormeer aan ku tagi doonaa dhammaan tuulooyinka si aan u eegno xaaladaha abaartu ay saameysay. Cabdullaahi Ibraahim, warbaahinta Ola Media, magaalada Mandera. آمين 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 آمين